filinkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan dhalinyarada ah waxay hotel la tagtay saaxiibkeeda waxayna si lama filaan ah u weysay dhegaheeda. Markaas ayaa waxay eedeysay mid ka mid ah gabdhihii nadaafadda ka shaqaynayay si ay lacag uga qaadato. Laakiin gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa si lama filaan ah ugu jawaabtay inay keento caddayn oo aysan qof kale si been ah u eedeynin. Gabadhii dhalinyarada ahayd ayaa xanaaqday waxayna ku oroday gabadhii shaqaalaha ahayd si ay ula dagaasho. Labadoodii waxay ku dhegeen timahooda, qof kastaana wuxuu diiday inuu sii daayo. Dagaalku wuxuu istaagay kaliya markii saaxiibkii gabadha dhalinyarada ah uu ku istaagay dhegahii ka lumay. Gabadhii shaqaalaha ahayd aad bay u xanaaqday waxayna goobta ku daadisay jawaankii qashinka iyadoo caraysan ayayna meesha isaga tagtay. Haddaad intaan nala soo gaartay muuqaalka like noo saar. Gabadhan shaqaalaha ah magaceeda waxaa la yiraahdaa Beekjeen. Waxay ahayd gabadh firfircoon oo nolosha fahansan. Waxay qabataa shaqo kasta inta ay tahay lacag xalaal ah oo si sharci ah lagu helayo. Maalintii Beekjeen waxay ka shaqaynaysay meel kafeega lagu cabo, kadibna waxay aadi jirtay goob dhisme si ay shaqada dhismaha u qabato. Inkasta oo ay shaqadu adkayd, Beekjeen mar walba way faraxsanayd. Habeenkan waxay adeegto ka ahayd xaflad weyn. Beekjeen iyadoo faraxsan ayay dhowr dhalo ka xaday cabitaankii xafladda ka hor inta aysan banaanka u soo saarin. Xafladda caawa waxay ahayd mid lagu bilaabayay olole ganacsi oo cusub oo loogu talagalay dadka taajiriinta ah. Kadib markii ay u adeegtay dadkii maalqabeenka ahaa, Beekjeen waxay u tagtay Jaehoon. Beekjeen waxay xoogaa u ciyaartay ama ku dhuftay Jaehoon, kadibna si farxad leh ayay uga tagtay. Waqtigaas telefoon ayaa u soo dhacay Jaehoon. Waxaa soo wacay Hayaak, isagu wuxuu ahaa saaxiibka ugu dhow ee Jaehoon. Intaas waxaa dheer, Hayaak wuxuu ahaa wiil taajir ah oo dhalinyaro ah. Hayaak wuxuu ka soo wacay qaybta raaxada ee diyaaradda. Wuxuu u muuqday mid sarqaansan. Wuxuu go'aansaday inuu buuq sameeyo sababtoo ah saaxiibadiisii ayaa ka baaqatay kadib markay ballameen. Si lama filaan ah, diyaaraddii ayaa aad u ruxmatay, taas oo keentay in Hayaak uu si aan ula kac ahayn ugu dhaco gabadhii adeegaha diyaaradda ahayd. Gacantiisuna waxay taabatay gabadhii. Markii uu arkay arrintan, duuliyihii ayaa u soo gurmaday wuxuuna adeegsaday qalabka dadka korontada ka naxiya si uu Hayaak uga dhigo qof miyir la'aan ah. Markii ay diyaaraddu soo degtay, Hayaak wuxuu ku qasbanaaday inuu u soo waco Jaehoon si uu damaanad uga soo saaro. Jaehoon ayaa u tagay wuxuuna ku qasbanaaday inuu keeno 2 sanduuq oo lacag ah si loo siiyo gabadhii adeegtada diyaaradda ahayd. Nasiib wanaag, gabadhii adeegaha ahayd way aqbashay lacagtii waxayna ku heshiiyeen in la heshiiyo. Si kadis ah, qoyska Hayaak waxay maanta dhigayeen xaflad furitaanka hotel ah. Markaas ayay Hayaak iyo Jaehoon ku degdegeen goobtii xafladda. Laakiin Hayaak maba filayn in aabihiisa oo ahaa gudoomiyaha shirkadda uu markaasba haystay usha lagu ciyaaro golofka si uu ugu soo dhaweeyo. Inkasta oo hooyadiisa ay hor istaagtay si ay u difaacdo, aabihiisa wuxuu diiday inuu iska daayo Hayaak. Hayaak wuxuu arkay saaxiibkiisii ugu dhawaa ee Jaehoon oo uu aabihiisa ku garaacayo usha lagu ciyaaro golofka sababtoo ah qaladaadkii uu Hayaak galay dartiisa. Taas ayaa ka dhigtay Hayaak mid aad u qoomameeya. Hayaak wuxuu go'aansaday inuu jilba joogsado oo uu raaligelin bixiyo, taas oo yaab ku noqotay aabihiisa. Laakiin aabihiisa meeshii ayuu isaga tegay, wuxuuna yidhi ma rabo inaan mar dambe ku arko. Wuxuuna kaga tegay Hayaak meeshii isagoo keligiisa fadhiya. Kadib markii ay Beekjeen dhamaysay alaab badan oo ay keligeeda dhaqaysay, iyaduna gurigii ayay aaday. Jaehoon wuxuu si lama filaan ah u arkay Beekjeen oo fadhida iyadoo sugaysa baska, markaas bayna hurdadu la tagtay daal dartiisa. Wuxuu damcay inuu gaarigiisa ku qaado, laakiin mar hore ayay baska raacday oo ay baxday. Markii uu gurigii ku soo laabtay, Jaehoon wuxuu kaliya awooday inuu meel fog ka daawado Beekjeen ka hor inta uusan mid kastaaba ku laabanin qolkiisa. Subaxnimadii hore markii uu yimid shirkadda, Jaehoon wuxuu arkay Beekjeen oo caano bilaash ah ka qaybinaysa dhismaha hortiisa. Jaehoon ayaa dhinac ula baxay Beekjeen wuxuuna siiyey ogolaanshaha shaqada ee shirkadda. Wuxuu rabay inuu siiyo shaqo degan oo mushahar fiican leh, laakiin aad bay u canaanatay sababtoo ah Beekjeen waxay u qaadatay in Jaehoon uu ku qoslaayo shaqada ay hadda hayso. Jaehoon wuxuu aaday inuu la kulmo xeer ilaaliyaha wuxuuna siiyey laaluush si loo xaliyo dhacdadii garoonka diyaaradaha ee dhacday maalintii hore. Jaehoon ayaa duubay dhammaan wada hadalkaas wuxuuna u keenay walaalkiisa Hayaak. Dhanka kale, Hayaak wuxuu joogay barkadda dabaasha. Si lama filaan ah, wuxuu maqlay codka Jayri. Waxay ahayd gabadhii uu Hayaak jeclaa. Markaasuu markiiba banaanka uga soo baxay biyaha, xataa wuxuu xaday dharka qof kale si uu u xirto. Wuxuuna Jayri ka raacay jidka jaranjarada. Laakiin markii uu Hayaak arkay Jayri oo dib u geysanaysa shaqaalaha sababtoo ah dhegahii oo ka lumay, waxaa dhinaceeda taagnaa nin kale. Hayaak indhihiisa ma uusan rumaysan karin. Wuxuu soo xasuustay xusuustii quruxda badnayd ee uu la lahaa Jayri, laakiin hadda way fiyaantay. Gabadha ay Jayri ku eedeysay inay xaday dhegaha waxay ahayd isla Beekjeen. Beekjeen si cabsi la'aan ah ayay ugu jawaabtay Jayri. Kadibna labadoodii waxay bilaabeen inay timaha iskugu dhegaan. Hayaak oo albaabka banaankiisa taagnaa ayaa arkay muuqaalkan, wuuna dhoola cadeeyey. Maareeyihii goobta ayaa isku dayay inuu Beekjeen ku qanciyo inay raaligelin siiso Jayri, laakiin Beekjeen waxay halkaas ku daadisay jawaankii qashinka, taas oo keentay fowdo weyn. Waxaa soo baxday in dhegahii kale ay ku dhegtay cagta saaxiibka Jayri, taas oo ka dhigtay Beekjeen mid aad u qanacsan. Beekjeen si degan ayay meeshii uga tagtay, iyadoo Jayri kaga tagtay meesha iyadoo ooynaysa. Jayri waxay aragtay Hayaak oo albaabka banaankiisa ka fiirinaya. Waxay ogaatay inaysan mar dambe ka faa'iidaysan karin Hayaak, markaasay aad u sii qaylisay. Hayaak wuxuu iskaga tegay meeshii, laakiin dhab ahaantii wuxuu aad u jeclaaday Beekjeen. Wuxuu arkay maareeyihii oo dhibaya Beekjeen, markaasuu markiiba u soo cararay si uu u difaaco. Labadoodii waxaa hotelkii ka soo ceyrsaday ilaaliyihii falkaas ay sameeyeen dartiisa, laakiin halkaas ayay isku barteen. Hayaak wuxuu maqlay Beekjeen oo magaciisa ugu yeeraysa. Waqtigaas wuxuu dareemay inuu jacayl qaaday. Hayaak wuxuu ku laabtay hotelkii si uu alaabtiisa u soo qaato, laakiin dharka uu xirnaa dartiis shaqaalihii ayaa khalad u fahmay oo banaanka u
tuuray inkasta oo uu hayaag sheegay inuu yahay wiilka milkiilaha cidna ma aysan rumaysanin hayaag wuxuu iska dhex taagnaa boosteejyada baska wuxuuna mar kale la kulmay beekjeen hayaag dartiis beekjeen waxaa ka tegay baskii markaasay labadoodii aadeen inay wax soo cunaan jaihon ayaa hoteelkii tegay oo raadiyey hayaag wuxuuna aad u cabsiiyey shaqaalihii sababtoo ah ma aysan rumaysnayn in hayaag uu yahay wiil taajira hayaag wuxuu raacay beekjeen si ay wax u soo cunaan laakiin wuxuu keliya daawanayay iyada oo wax cunaysa wuuna naxay sababtoo ah cuntooyinka oo dhan waxay ka samaysnaayeen hilibka tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee uu hayaag cuno wax caynkan ah taas oo ka dhigtay beekjeen inay qososho hayaag wuxuu maqlay beekjeen oo ka sheekaynaysa lacagta yar ee ay bishii qaadato taas oo aad la yaab ku noqotay sababtoo ah lacagtaas aad bay u yarayd cuntadii kadib markii ay rabeen inay ismacasalaameeyaan hayaag ayaa si lama filaan ah shaashad weyn ka arkay muuqaalkiisii dhibaatadii uu ka sameeyey diyaaradda aad buu u naxay wuxuuna go'aansaday inuu beekjeen ka codsado caawina dhanka kale aabbihiisa oo ahaa gudoomiyaha shirkadda waxaa ku hareeraysnaa wariyayaal oo su'aalo ka weydiinayay fowdadii uu hayaag ka sameeyey diyaaradda gudoomiyuhu aad buu u xanaaqay wuxuuna amray in hayaag hortiisa la keeno islamarkaaba jaihon meel kasta ayuu ka raadiyey hayaag laakiin wuu waayey si lama filaan ah jaihon waxaa soo wacay aabbihiisa telefoonkaas wuxuu xasuusiyey jaihon xusuuso aad u xanuun badan iyo sida uu mar walba ugu qasbanaa inuu u nadiifiyo khaladaadka uu sameeyo hayaag markii uu jaihon guriga ku soo laabtay waxaa hor istaagtay beekjeen waxay rabtay inay jaihon weydiisato inuu qof u ogolaado inuu guriga ku hoydo habeenkaas laakiin jaihon si adag ayuu uga diiday waxaa la yaab noqotay in qofkaas uu ahaa hayaag taas oo ka yaabisay labadoodaba hayaag wuxuu ballanqaaday inuu berito gurigooda ku laaban doono uuna isdhiibi doono haddii loo ogolaado inuu habeenkaas seexdo taas waxay keentay in jaihon uu diidi waayo jaihon wuxuu dhegaystay hayaag oo qiranaya dareenkiisa jaihon wuxuu ogaaday in hayaag uu isna jeclaaday beekjeen hayaag qudhiisu wuxuu garowsaday inuu jacayl u qaaday beekjeen jaihon wuxuu ku riyooday riyooyin qarow ah riyooyinkaasna waxay ahaayeen hadalladii hayaag ee ku saabsanaa dareenkiisa beekjeen markii uu jaihon soo toosay wuxuu gartay inay riyo uun ahayd laakiin markii uu hareeraha fiiriyey wuxuu waayey hayaag markaasuu si degdeg ah u aaday inuu raadiyo wuxuu ogaaday in hayaag uu kor ugu baxay si uu ula qadeeyo beekjeen isagoo hal baaquli ku cunaya lacag aad u fara badan jaihon ayaa markiiba hayaag u sheegay inuu hoos u soo dego isagoo ku marmarsiyoonaya inuu aabbihiisa u ogaado wakhtigaas warkii ka soo baxay telefoonka wuxuu ku saabsanaa sida uu jaihon u xalinayay dhibaatadii hayaag taas oo beekjeen oo ahayd qof runta jecel ka dhigtay inay dareen xun yeelato hayaag aad buu u calool xumaaday markii uu maqlay beekjeen oo canaanaysa wuxuuna go'aansaday inuu xaaladda bedelo wuxuu dareemay inuusan lumin karin gabar sidaas u wanaagsan gudoomiyaha ayaa shir la lahaa dadka saamiyada ku leh shirkadda si loo xaliyo dhibaatadii uu hayaag keenay iyadoo doodii ay u dhexayso saamilayda hayaag ayaa si lama filaan ah albaabka u soo furay isagoo raba inuu isdhiibo si wax walba loo xaliyo laakiin arrintani waxay sii kordhisay xanaaqii aabbihiisa wuxuuna bilaabay inuu garaaco hayaag nasiib wanaag jaihon ayaa goobtii soo gaaray oo ka badbaadiyey hayaag xanaaqii gudoomiyaha beekjeen ayaa timid si ay caanaha u keento laakiin jaihon meesha ma uusan joogin waxaa soo baxday in jaihon uu markaas dhayaayay dhaawacyada hayaag iyadoo labadoodu ay jidka ku soo jiraan hayaag wuxuu arkay beekjeen oo qof uu xoog sheeganayo markiiba wuxuu u orday inuu caawiyo taas oo ka yaabisay gabadhii jaihon wuxuu ku qasbanaaday inuu aqbalo caawinaada markii uu arkay hayaag laakiin beekjeen ayaa jiiday hayaag labadoodii waxay ku sheekaysteen marinka laakiin ma aysan sii daahin ka hor inta uusan jaihon ka haysan hayaag si lama filaan ah beekjeen waxay rabtay inay ku casuunto hayaag inuu la shaqeeyo kadib markii uu jaihon la kulmay xeer ilaaliyaha uuna maqlay hadalkiisa wuxuu shakiyey inuu jiro qof shirkadda gudaheeda ah oo xogta bixinaya jaihon wuxuu go'aansaday inuu raadiyo walaalkiisa hayaag si uu u sheego beekjeen ayaa hayaag u kaxaysay goobtii dhismaha halkaasna wuxuu ku qabtay shaqooyin adag sida dhisidda derbiyada iyo raridda ciidda shaqooyinkan dhibka badan uma uusan qalmin qof isaga oo kale ah laakiin hayaag markii uu arkay in beekjeen ay weli faraxsan tahay oo ay firfircoon tahay ayuu helay dhiirigelin uu shaqada ku sii wado hayaag wuxuu u soo qorsheeyey jaihon si uu u caawiyo laakiin jaihon wuxuu joogay garoonka diyaaradaha isagoo raadinaya gabadhii adeegtada diyaaradda ahayd si uu wax walba ugu caddeeyo kadib maalin shaqo oo adag hayaag wuxuu helay mushaar laakiin lacagtaas yar waxay isaga la ahayd mid yar oo lagu gato cunto fudud oo keliya markii ay guriga u sii socdeen isaga iyo beekjeen way wada sheekaysteen si farxad leh ayayna u wada qosleen waxay sidoo kale heleen ubaxyo qurux badan waxayna isku sheegeen waxyaabaha ay qarsadaan markii uu jaihon shaqada ka soo noqday oo uu arkay labadooda oo wada jooga wuu dhibsaday wuxuuna markiiba u cararay dhankooda si uu hayaag meesha uga buriyo laakiin markii uu jaihon maqlay in hayaag uu rabo inuu seexdo qolka beekjeen markiiba wuxuu hayaag dib ugu jiiday qolkiisa beekjeen aad bay u faraxday markii ay maqashay labadooda oo bannaanka isku qabsanaya si lama filaan ah beekjeen waxaa soo wacday hooyadeeda taas oo dareen xun ku abuurtay markii ay guriga gashay beekjeen waxay aragtay saaxiibadeedii ugu dhoweyd oo fadhida misana cabitaan cabaysa qofkaasna ma ahayn qof kale ee waxay ahayd gabadhii adeegtada diyaaradda labada waxay ku jireen sheeko iyo cabitaan laakiin hayaag aad buu u faraxsanaa oo ma uusan dhegaysan jaihon wuxuu u orday saqafka sare isagoo raba inuu la cabo beekjeen si lama filaan ah wuxuu halkaas kula kulmay gabadhii adeegtada diyaaradda taas oo xaaladda sii adkaysay markii uu hayaag mar kale ku dhacay yaani hayaag hooyadiisa waxay ka soo toostay hurdo la'aan waxayna go'aansaday inay u tagto qof arrinteeda wax ka qaban kara si ay wax u ogaato wiilkeeda beekjeen waxay ogaatay in wax kasta laga been sheegay aad bayna u xanaaqday waxayna su'aalo weydiisay jaihon iyo hayaag laakiin ugu dambayntii yaani waxay dhexda ka jeexjeexday heshiiskii waxayna
xirmo lacag ah ku tuurtay wejiga Jaehoon, taas oo isna aad uga xanaajiyey. Inkasta oo Hayaak uu isku dayay inuu sharaxaad bixiyo, haddana wax walba waxay u dhacayeen si ka duwan sidii uu qorsheeyey. Kadib markii Yaani la geeyey qol ay ku nasato, Baekjin waxay aaday shaqadeedii ahayd qaybinta waraaqaha xayeysiiska. Baekjin waxay akhrisay fariin uga timid hooyadeeda, waxayna ogaatay in hooyadeeda ay kaliya lacag ka rabtay. Taas waxay ka dhigtay inay oydo. Kadib waxay heshay qof u baahan in gaari lagu qaado, laakiin waxaysan la filayn qofkii ay la hadlaysay wuxuu ahaa walaalkii Hayaak. Baekjin waxay maqashay wadahadalkoodii, waxayna ogaatay in arrimuhu aysan u fududayn sidii ay u muuqdeen. Hayaak wuxuu habeenkii oo dhan ku sugayay Baekjin bannaanka iyadoo ay jirto qabow iyo roob weyn. Subaxnimadii dambe Jaehoon ayaa soo wacay, markaasuu Hayaak soo toosay. Markii ay Baekjin soo laabatay, waxay go'aansatay inay hooyadeeda dib u wacdo si kasta oo ay wax u jiraan. Baekjin waxay aaday shaqada si ay u raadiso Jaehoon, waxayna u sheegtay wadahadalkii ay maqashay xalay. Jaehoon iyo Baekjin waxay garteen in wax xun ay dhaceen, waxayna ku degdegeen hoteelkii uu Hayaak deganaa. Waqtigan booliskii ayaa yimid, laakiin nasiib wanaag Hayaak timaha ayuu midabeeyey, markaasay boolisku aqoonsan waayeen. Jaehoon wuxuu si degdeg ah u kormaray jaranjarada si uu u qariyo Hayaak inta ay boolisku wiishka isticmaalayeen. Nasiib wanaag Baekjin waxay iska dhigtay shaqaale hoteelka ah oo qolalka nadiifiya, waxayna ku caawisay Hayaak inuu ku dhuunto sanduuqa shukumaanada si uu u baxsado. Hayaak wuxuu fursadan u adeegsaday inuu fuliyo heshiiskii. Wuxuu ka codsaday Baekjin inay garabkiisa joogto waqtigan, sababtoo ah Baekjin waxay si degdeg ah ugu baahnayd lacag, markaasay ogolaatay. Laakiin markii uu hadalladaas maqlay, Jaehoon aad buu u xanaaqay. Jaehoon uma adkaysan karin inuu arko Hayaak oo ka faa'iidaysanaya dhibaatada Baekjin. Waxaa soo baxday in Baekjin ay lacagta u baahnayd si loo daweeyo walaalkeeda ka yar. Baekjin waxay soo xasuusatay hadalkii aabaheeda oo ahaa in adduunkan ay jiraan waxyaabo aan mar walba u dhici doonin sida qofku uu rabo. Baekjin way aqbashay soo jeedintii, waxayna Hayaak qolkii kaga soo saartay kursiga curyaanka, laakiin booliskii ayaa raacay ilaa wiishka dhexdiisa ku dhuustay, taas oo keentay in booliskii ay bannaanka uga baxaan urta darteeda. Laakiin isla daqiiqadaas Hayaak waxa u soo dhacay telefoon, taas oo booliskii ku riday shaki ah in qof ku jiro gaariga tuwaalada, markaasay soo daba kaceen. Labadoodii waxay ku carareen gaarigii Jaehoon oo ku sugayay qaybta hoose ee dhismaha, markaasay baxsadeen. Laakiin booliskii ayaa weli daba socday oo bursanayay. Cayrsigii jidka ayaa sii socday. Jaehoon wuxuu adeegsaday caqli si uu labadooda u caawiyo. Boolisku waxay joojiyeen gaarigii Jaehoon si ay u baaraan, laakiin cidna kuma aysan dhex arkin, markaasay iska sii daayeen. Waxaa soo baxday in Baekjin ay caqli badnayd oo ay Hayaak markiiba bas ka saartay, sidaas darteed boolisku ma aysan ogaanin. Intaas kadib Baekjin waxay Hayaak si degdeg ah u geysay goobta dhismaha, waxayna u sheegtay in tani tahay meesha ugu habboon ee lagu dhuuman karo. Inkasta oo uu Hayaak ka codsaday inuu joogo, Jaehoon wuxuu ku laabtay shirkadii wuxuuna xaaladda uga warramay Hayaak walaalkiisa. Laakiin Jaehoon wuxuu ahaa mid taxadar badan, umana sheegin meesha rasmiga ah ee uu Hayaak ku dhuumanayo. Waxa la yaab leh waxay ahayd in Hayaak walaalkiisa uu go'aansaday inuu qabto shir jarayd isagoon hal eray u sheegin Jaehoon. Hayaak wuxuu isku dayay wax kasta si uu u soo jiito dareenka Baekjin, laakiin waa uu ku fashilmay. Markii ay Baekjin aragtay Hayaak oo si naxdin leh daaqada uga fiirinaya bannaanka, waxay go'aansatay inay qada u kaxayso si uu tamar u helo. Hayaak markii uu arkay cuntadii hortaalay, wuu cuni waayey, laakiin markii uu ka fikiray inuu dareenka Baekjin la qaybsan karo haddii uu cuntadan cuno, ayuu geesinimo muujiyey oo cad weyn afka geliyey. Si lama filaan ah, dhadhankii cuntada ayaa la yaab ku noqday sababtoo ah aad bay u macaaneed. Xilligaas odayaashii goobta cuntada fadhiyey waxay ka sheekaysanayeen warka TV-ga ka baxaya. Waxaa xusid mudan in qofka ay dadka oo dhammi ka sheekaynayeen uu ahaa Hayaak. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsani.